Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan rabaa inaan marka hore salaamo bulshadayda qiimaha badan salaan gobanimo leh. Magacaygu waa Filsan Duceysane. Waxaan ka mid ahay saxaabiyinta ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ka hadlo xariga walaalkay Cabdullaahi Duceysane oo ay tahay maalintii 19aad ee uu maanta xiran yahay oo aanan garanayn meel uu ku xiran yahay sababta loo haysto aragtidiisana loo diiday raq iyo ruux aanan ku haynin 24 saacadood wixii ka badan qofka muwaadinka ah sida caadiga ah ee dastuurka iyo sharcigaba ah hadii ay la sii haynayo waxa ay tahay in waaran loo soo jarto oo maxkamad la tago inta la haynayana la cadeeyo sida sharciga laakiin sharci darro ku xiran yahay walaalkay xarigiisana cid ogeyd ma lahan gurigiisa loogu tagay xilli habeena laga soo xirtay taasoo xitaa dadka ay dhamaantood dib ka ogaadeen wuxuu xiran yahay dawladda Soomaaliya gaar ahaan taliska booliska ee gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa cod dheer anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan familkaygaba in xorriyadiisa si degdeg loo siiyo walaalkay wuxuu xiran yahay muddo dheer oo 19 maanta ay u tahay ma jirto cid ihtimaam badan la siisay oo arrinkiisa xitaa faahfaahin badan naga siisay Cabdullaahi waa wiil dhalinyaro oo shaqaysta shaqadiisana cid ay dhibaato aan problem ku tahay ma jirto wuxuu diyaarinayaa hadda heerka labaad ee waxbarashada ee master degree oo hadda u socotay qof wuxuu yahay jadwal iyo mustaqbalkiisa nolosha ay waqti u leedahay laakiin intaas inuu qofka meel cid la iskaga xirnaado ma fahmi karno sababta ka dambaysa kama baqanayna runta inaan ka hadalno waxa u baahanahay cadaalad wiilkeena inuu xorriyad helo qof hadii uu dambi geysto ma ahan anigu waxaanan ahayn shalay maanta ma noqonayo Cabdullaahi wuxuu ahayn shalay isna ma noqonayo laakiin wixii wada shaqeeyna iyo wixii la isla ogyahay si cadaalad anagu waan ogolnahay waxaanan ahayn marraba ma noqonayno rooy xarigan xal maahan umada lagu xabsanayo xujiyo waa xaasinimo xiskiinu intuu shaqeeyo xilkii shaqadiina oogta xeerkii dhaqankana ilaasha cadaaladaas weynaa wiilkeenana inuu si degdeg ah xorriyadiisa u helo ayaan dalbanaynaa waa mahadsantahay